xafiiska madaxweynaha muddaxileedku ka dhamaaday ee Soomaaliya midka ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda ciidamada dawladda ayaa la soo warinayaa inay xusul duub ugu jiraan sidii loo baajin lahaa isu soo baxa berri ee fagaaraha daljirka Dahsoon laakiin saacadii la soo dhaafay waxaa si weyn suuqa u soo galay warar sheegaya in la isku khilaafsan yahay in awood lagu joojiyo mudaharaadkaas midowga musharaxiinta ayaa cilaamiyay soo bax nabadeed oo lagu dalbanayo in dalku doorasho aado madaxweynaha waqti uu ka dhamaadayna uu dhexda soo dhigo maamulka iyo awoodda doorashada banaanbaxaas ayaa abaabulkiisu si weyn uga socda caasimadda dadka magaalada oo u muuqda kuwa cabursanaa 4 sano ee farmaajo ayaa badi isu diyaarinaya inay beri neefsadaan laakiin maamulka waqti uu ka dhamaaday ayaa wada kulamo isdaba jooga oo lagu hor istaagayo arrintaas ilaa hadda waxa arrinta loo qaybiyay 3 jiho madaxtooyadu waxay ka shaqeynaysaa in siyaasad ahaan loo joojiyo banaanbaxa oo cadaadis caalami ah la saaro musharaxiinta laakiin beesha caalamka oo ay shalay musharaxiintu la hadleen ayaa ku guuldareysatay inay arrintaasi ku qanciso midowga musharaxiinta sidoo kale shir ayuu xalay ku dhawaaqay madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo uu sheegay inay tahay in la isugu yimaado magaalada Muqdisho maanta oo Khamiis ah xilliga shirkaasi lagu dhawaaqay oo qayb ka ah qorshooyinka lagu dibcinayo banaanbaxa ayaan ilaa hadda jirin dawlad goboleedka soo jawaabtay taas oo muujinaysa dhinaca kale sharci la'aanta ku dhacday Farmaajo iyo sida ay u weeqantay awoodiisii xafiiska ra'iisul wasaaruhu waxa la sheegay inuu ka shaqeynayo abaabul ciidan iyo mid farsamo wuxuu wajahayaa xaalad adag shalay qorshe farsamaysan oo ay 3 wasiir ku sheegeen in xaaladda corona dartii aan la isku imaan karin ay mucaaradku ku tilmaameen wax lagu qoslo arrinta ciidanka waxa ka taagan cabsi iyo jahwareer saraakiisha qaar ayaa la sheegay inay ku baaqeen in magaalada caawa la xiro ciidanna lagu daadiyo degmooyinka Hodan Kaaraan iyo Wadajir oo loo badinayo inay badi banaanbaxyaashu ka imaan doonaan sidoo kale saraakiisha qaar waxay ku baaqeen in rasaas nool la adeegsado haddii ay dadku isku dayaan inay diidaan amarka ciidanka laakiin arrintaas waa la isku khilaafay oo waxa loo ballamay in laga yeesho kulan kale saraakiisha qaar ayaa la sheegay inay ku doodeen in haddii rasaas la adeegsado inay ka dhalan karto xaalad hubanti la'aan oo aan waxba laga qaban karin jawaabteeda gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Finish ayaa la soo warinayaa in cadaadis xoog leh uu kala kulmay madaxtooyada waxaana lagu qasbay inuu cadaadis saaro gudoomiyaasha degmooyinka si ay ugu yaraan u daciifiyaan tirada dadka u soo baxaya banaanbaxa berri kadibna waxa la sheegay inuu Cumar Finish dhammaan maamulka degmooyinka faray inay xakameeyaan dadka ka soo baxaya degmooyinkooda isagoo ku goodiyay in la xisaabtami doono gudoomiyihii degmadiisa ay dad badani ka soo baxaan dhalinyarada madaxda ka ah degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood waxa ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin arrintaas iyagoo ku tilmaamay mid adag inay dadka guryaha ku celiyaan xogaha kale ee la helay waxa kamid ah in saraakiisha amniga qaarkood ay soo jeediyeen in aan banaanbaxa la hor istaagin oo beddelkeeda amnigiisa la sugo si looga badbaado dhibaato banaanbax ka weyn laakiin saraakiishaasi lagama hoos qaadin soo jeedintooda xubno ku dhowrow madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ayaa la sheegay inay u ololeynayaan in la weeraro banaanbaxayaasha berri laakiin lama yaqaano faa'iidada ay arrintaas uga dhex jeedaan musharaxiinta Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa xalad degay hotelka Naasa Hablood 2 oo wax yar u jira daljirka Dahsoon si ay berri u hogaamiyaan banaanbaxayaasha sidoo kale hogaamiyaasha qaar ayaa dhinaca kilomitir 4 ka hogaamin doona dadweyne badan haddii ay guuleystaan xubnaha dawladda ee iibinaya in banaanbaxa xoog lagu joojiyo lama yaqaano nooca ay noqon doonto falcelinta askarta la socota musharaxiinta mucaaradka Muqdisho waxay ku jirtaa jawi walaac ah waa banaanbixii koowaad ee sidaasi looga walaaco waxaana ugu wacan ayaa la leeyahay madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhowr jeer xoog u adeegsaday joojinta banaanbaxyo shacbi ah maxay kula taadiga